محمد محمود علي جينير barasaabka gobolka Maroodijeex oo wareysi gaar ah maanta siiyay TV-ga Somset xaruntiisa magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay xaaladda gobolka Hargeysa guud ahaan haday tahay xagga amniga waxaanu tilmaamay in si wanaagsan loogu soo dhaweeyay Hargeysa maalintii xilka barasaabnimo ee gobolka loo magacaabay waxaan la kulmay nabadgelyo iyo soo dhaweyn waxaan ku farxo maahan wax dhibaa ma arag ama aan la yaabo oo maartay argagax ugu noqdo barasaabka gobolka Maroodijeex Mr Jeniyer waxa uu sidoo kale uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool ee hore uga ahaa barasaabka taas oo uu ku eedeeyay rag qurba jooga oo uu ku sheegay inay xasilooni darro ka wadaan deegaanada Sool iyo Buuhoodle Soomaaliland waxa weeye waa la wadaleeyay dadka maartay Soomaaliland diidka ee cadawga ee nimanka malcuumiinta oo siyaasiyiinta waaweyn oo qarankan maartay aan rabin oo duminaya ورجع وين ولا علي كم يجين وشو قربه ولا يغنوا فوحى دتك وحما قرطا يدتك عن قونته بدن هاي يدتك عن دسلين وحا قاففه ولا ما على حما هيان بان لنا ولا بودي هربياه وقال لا دقمي وان اوبدكود دولك joogin ilaahay waxaan ka baryaynaa in iyaga ilaahay soo hadeeyo oo dadka shacabka ay wax ma garatada ay naga dibin daabiyeen inay ka daayaan hadda حالي waxaan maqliyay hoo yar oo ka hadlayay TV-ga waxa lahaayeen ardaydii reer Laascaanood ha soo baxdo xagee u baxan Laascaanood bay ku dhasheen ardaykay iskuuladoodii iyo tacliintoodii u furanta dawladooda halka u joogtaa wasaaradooda waxbarashada sabab loo yaado ayadoo cararo loo jabiyo ma garanayo ardayda reer Sool waxaan ku baaqayaa inay manhajkooda ka mid noqdaan waxbarashadooda ka mid noqdaan ay iyo door iyo dhulka dhinaca ku cunaysa inay tagin nimanka shuftada oo aan ilaahay uga baryayno ilaahay soo hadeeyo doorka wareegaya oo ay ka dambeeyaan nimanka waaweyn oo wadkoodii Mareykan iyo Ingiriiska ay professorka midhanka yihiin ee baabiinaya ardayda yar yar ee abayaashooda aan jaamacad dibadeed geyn karin ee abayaashooda aan school fee dibadeed ka bixin karin iyo waxaan la yaadarayaa dhageysanina iskuuladiina barta harkiina ka bixina ya dhinaca kale Maxamed Maxamuud Jeniyer barasaabka Hargeysa waxa uu baaqay hogaamiyayaasha Khaatuma inay ixtiraamaan gogosha nabadeed uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo deertaadii beelikeedii hubka sito reer Soomaaliland oo banaanka joogo mucaaradka waxaan ugu soo jeedinayaa waliba qodatan Khaatuma la baxday inuu hubka iska dhigaan inay gogosha wada hadalka soo fadhiistaan يعني حكومة دولين بدو ku baaqday inay soo dhaweynayso waxa leenahay waa la soo dhaweynayay dadkan waxba garanaya maatada ilaahay baa ku dhaarsay waxa leeyahay nimankiina Khaatuma la baxay waa jibinina soo dhawaada way soo dhaweynayna halkan caawa fadhiyo hadii rag halka jooga ninka mid uu doolayo madaxweynaha codtu jeedinayo inuu madaxweynaha ugu bedel Axmed Karaash oo kale dalka rabo waxaan leenahay kaale qorga dhigo ma garta ana cimada iska qaadanayo shacbiga ka mid noqon reer Soomaaliland ya laakiin riya yaraan soconayno xabad yar mar meel laga ridayo gabdho qurba joogo been loo sheego verification loo sameeyo dadkiiba la baabiinaya bis loo geliyo aan waxba hadda ka jirin waxa weeye wallahi sharaf ugu helay haddaba hadalka barasaabka ayaa ku soo beegmaya xilli diyaar garow ballaaran loogu jiro xuska sanad guuradii 22aad ee 18 May iyadoo guud ahaan magaalada Hargeysa laga arkayo haday tahay meheradaha ganacsiga iyo suuqyada kala duwan ee magaaladaba iyagoo ka dulbabanayo calanka Soomaaliland Cabdishakuur Haybe Somset TV magaalada Hargeysa